Okay, waxaan ka hadlaynaa waa acceleration karaarka. Waxaan dhahnay shay waliba oo socdo wuxuu leeyahay karaar buu leeyahay, acceleration buu leeyahay. Marka waxaan isticmaalaynaa si lamid ah reference ka dhiganaynaa cycle ayaan reference ka dhiganaynaa. Kani waa cycle laba diameter uu leeyahay x axis y axis. There is an object in this position. Objectiga dhaqaaq bay samaysay bartaasay joogtaa. Objectiga bartaas markay taagan tahay projectionkiisana bartaasuu joogaa. Projectionkii bartaasuu kasoo dhaqaaqay asigana n prime buu joogaa. Waxaan dhahnay objectiga centerka ayaan ku xiraynaa, wuxuu sameynayaa angle buu sameynayaa theta. Isla objectiga waxaan ku xiraynaa bartiisa projectionkiisaan ku xiraynaa, angle-kan alternate bay sameynayaan, theta buu leeyahay. Intaas waa fahansannahay, waa intaan maanta dhan ku soo celcelinayno. Okay, meeshaan aan rabaa ustaad inaan wax yar aan ka fiirin, wax yar aan rabaa inaan meeshaan ka iftiimino. Waxaan dhahnay objectiga markuu socdo xawaaruu ku socdaa, xawaarahaas oo constant uu yahay. Xawaarahaas constant markuu yahay wuxuuna rabaa objectiga inuu wareeg uu ku sameeyo round about ama cycle inuusan ka bixin buu rabaa. Okay, cycle si uusan uga bixin waxaa lagama maarmaan ah, qasab ku ah inuu jiro xawaaro ku xadidayo inuusan round about u ka bixin ama cycle-ka dushiisa uusan ka bixin. Xawaarahaasan waxaan ku tilmaannay tangential velocity. Intaasoo inaa ila fahantidan u baahanahay. Xawaaraha jiraan dhahnay oo loo yaqaano vt tangential velocity. Okay, xawaaraha tangential velocity-gu wuxuu leeyahay asigana wuxuu leeyahay ustaad, xawaarahaas wuxuu leeyahay wax loo yaqaano centripetal acceleration. Karaarka waxaan rabaa karaarka ka dhaco ama karaarka uu sameeyo tangential velocity uu sameeyo. Yacni waxaa jiro karaar ku xadidayo shaygan inuusan cycle-ka ka bixin. Yani there is an acceleration towards the center of the cycle. Acceleration baa jiro ku xadidayo shaygan inuusan cycle-ka uu ka bixin dushiisa, uu ku haynayo inuu ku wareegto cycle-ka dushiisa oo loo yaqaano centripetal acceleration. Centripetal acceleration waxaa lagu helaa negative omega square r. Saas baa lagu helaa. Halka r aan tilmaanay aan u qaadan karna a waa fogaan un waay, ama radius u qaado ama a u qaado waa un fogaan. Okay, objectigan haddii uu jiro acceleration ku xadidayo inuu center of the cycle uusan ka bixin, haddana waxaad ogaataa ustaad in uu jiro acceleration-kaas oo ku haynayo projectionka center of the cycle, xudunta cycle-ku ku soo celinayo mar walba. Karaar baa jiro markuu projectionka uu tago ku soo celinayo centerka ku soo celinayo baa jiro oo loo yaqaano asigana acceleration y ayaan u qaadanaynaa maadaama uu ka dhacayo qaybtan y axis. Si lamid ah cagsigeeda ayaa dhacayo objectiga markuu bartaas uu joogo, projectionkiisa halkan uu joogo asigana wuxuu sameynayaa wixii kan uu sameeyo buu sameynayaa. Halkan ayuu wuxuuna siinayaa ax buuna siinayaa. Okay, waxaan isticmaalaynaa marka shaxdaana isticmaalayn sidaan u helno acceleration-ku uu sameynayo. Angle-ka aan haysano waa kana. Triangle waxaa meesha ka soo baxaya qaabkan leh, formation-kan leh. Xagashiisa inta theta ay tahay, meeshan uu haysto AC, halkaana AY uu yahay, halkaas 90 degree uu yahay. Marka waxaan haysanaa opposite iyo hypotenuse haysanaa. Maxaan heli karnaa? Waxaan heli karnaa sin theta baan heli karnaa oo lagu helaa opposite all over hypotenuse. Okay, sin theta waxay la eg tahay opposite-ka meeqa haysanaa AY all over hypotenuse-ka meeqa haysanaa AC. Si aan u helo AY AC halkaas ku dhuf, halkaana AC ku dhuf. AC way isla baxayaan. AY waxay la eg tahay AC lagu dhuftay sin theta. Okay, AC ustaad maxay ahayd? AC waxaan dhahnay waa centripetal acceleration. AC waxaan kusoo tilmaamay inay tahay centripetal acceleration. See lagu helaa? Waxaa lagu helaa negative omega square a sin theta. Waa inta kale sideeda u qoro. Theta ma la heli karaa ustaad? Theta maxaa lagu helaa? Yes, theta waa la heli karaa. Waxaa lagu helaa negative omega square a sin omega t. Ustaad equation-ka
aan isticmaalayna acceleration markuu uu ku dhaco across y axis kaas buu noqonayaa oo ah negative omega square ee ku dhacsan sin omega t. waa qodobka xiga aan rabno dhaqdhaqaaqa uu ku sameynayo x axis-ka horizontal line-ka uu ku sameynayo ustaad triangle ayaa meeshaas ka soo baxay cagsigiisa ah oo asigana noocan u sawiran qaabkan uu leeyahay. tiitadiisana halkan ay tahay, halkan x ay tahay, halkaas korona uu haysto ac. triangle noocaas uu soo baxaa. marka haddaan haysto adjacent iyo hypotenuse waxaan heli karaa cos theta ayaan heli karaa oo lagu helayo adjacent over hypotenuse. waa qodob. okay, cos theta waxay la eg tahay adjacent meequu leeyahay ax, hypotenuse ac. si aan ax u helo halkan ac ku dhufo, halkan waxaan ku dhuftaa ac, labadaas way isla baxayaan. ax waxay la eg tahay ac oo ku dhacsan cos theta. okay, ac maxaa lagu helaa? ac ustaad waxaa lagu helaa negative square a cos theta. theta maxaa lagu helaa ustaad? theta waxaa lagu helaa negative omega square a cos omega t. equationka labaad aan isticmaalayno asigana sidaas ayuu noqonayaa. okay, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxay minus u qaadataa mid hataa positive uu noqon waayo. halkaan ayaan kugu fahansiinaya ustaad sababta ay minus u qaadanayso. markaa fiirisay jihada uu ku wajahan yahay vertical axis-ka centripetal acceleration-kiisa ama acceleration-ku ku xadidayo center of the cycle-ka fallaarta waxay ku wajahan tahay dhanka negative-ka ay ku wajahan tahay. haddii uu ku soconayo horizontal-ka uu ku soconayona salimid ayadana waxay ku wajahan tahay dhanka negative-ka. that is why labada dhinacba ay negative aga tahay. waa qodob. okay, maximum acceleration ayaa jiro ustaad oo lagu helayo negative omega square a. ayadana waxaan ku sharxaynaa maadaama cirfaha wax laga hadlayo waa barbaxa ugu fog ama fogaanta ugu fog, karaar miyuu ku sameyn karaa? no, karaar kuma sameynayo. sababtoo ah markuu meeshaas uu gaaro wax xagal ah uu sameynayo ma laha. xagal uu sameynayo ma laha centerka uu kula sameynayo. therefore haddaysan jirin xagal uu centerka uu kula sameynayo accelerationka waxaan ku helaynaa kelito angular frequency lagu dhuftay amplitude. halkaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa qaacidooyinkii equations of simple harmonic. okay, ustaad example-kan sidaan ayuu qoran yahay. equation of motion dhaqaaqa particle ayaa ah 10 cm sin 0.5 rad per second t. particle-ka wuxuu sameynayaa vertical simple harmonic motion. vertical ayuu sameynayaa, horizontal maaha, vertical micnaheedu across y axis ayuu ku sameynayaa. waa qodob. waxaana laga rabaa a displacement uu sameeyey, b waxaana laga rabaa displacement. b waxaana laga rabaa velocity. c waxaana laga rabaa acceleration. time at t is equal to 1 second. time hal ilbiriqsi markuu la egyahay. okay, aan ka bilaabno displacement vertical way soo maahan y aan isticmaalin. y is equal to amplitude siis u qaado sin 0.5 radian per second lagu dhuftay time-ka oo 1 ah. okay, calculator-kaada soo qabso 10 lagu dhuftay sin 0.5 times 1 dheh waxaa kuu soo baxay ustaad 4.8 centimeter. kaas halkaasaan kaga gudubnay example qaybtiisa a. example qaybtiisa b ayaan u gudbaynaa. velocity ayaan leeyahay. shaygu wuxuu ku socdaa still vertical ayuu ku socdaa. waxaan isticmaalaynaa vertical y is equal to a omega cos omega t. kana isticmaalaynaa maadaama uu vertical uu yahay. okay, meesha
a waxaan haysanaa 10 omegana waxaan haysanaa 0.5 cos omega 0.5 haysanaa t-na waxaan haysanaa 1 calculatorka soo qabsa intaan isku dhufo waxaa kuu soo baxaysa ustaad intaan markaa isku dhufatid waxaa kuu soo baxaysa 4.4 maxaa noo diri velocity rate per second square velocity saasaan ku helaynaa okay c example qaybtiisa c sidaan ayuu leeyahay acceleration vertical acceleration waaye vertical acceleration ustaad maxaan ku helaynaa vertical acceleration waxaan ku helaynaa y waxaan ku helaynaa negative omega square a sin omega t saanaan ku helaynaa okay aan dhaho negative 10 oo ku dhacsan 0.5 ugu dhuftay sin omega 0.5 times 1 oo time kuwaan dhan calculatorkaas soo qabso isku dhudhufa iyagoo dhan waxay ku siinaysaa 1.2 rad per second square okay meeshaan waa velocity way velocity square masaan accelerationka saas okay ustaad halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkii aan ugu talagalnay equations of simple harmonic motion with reference cycle oo aan aga hadlaynay displacementaha equationada uu leeyahay velocity equationada uu leeyahay iyo acceleration equationada uu leeyahay si lamid ah waxaan kaloo fiirinay muuqaalkan ugu fiirinay example la xiriira accelerationka displacementaha iyo velocity. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.